gudoomiyaha xisbiga UKIB ee dalka Britain Master Nigel iyo xildhibaan James Carver oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Yurub ayaa golaha sharci dejinta ee midowga Yurub u soo bandhigay inay aqoonsadaan madaxbannaanida Somaliland. Gudoomiye Nigel iyo xildhibaan Carver oo shalay ka qayb galay fadhi baarlamaanka Yurub kaga doodayay aqoonsiga dalka Falastiin ayaa labadooduba iska daba qaateen taageero ay ku dhiirigelinayeen aqoonsiga Somaliland oo ay sheegeen inay u qalanto isla markaana ay buuxisay shuruudihii dawladnimo ayna mudan tahay in golahooda la soo hor dhigo mooshin lagaga doodo aqoonsiga Somaliland. Fadhiga baarlamaanka Yurub shalay ku yeeshay xaruntooda magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska oo cod loogu qaadayay aqoonsi la siiyo dalka Falastiin ayaa xildhibaan James Carver oo xisbiga UKIB ugu jira baarlamaanka waxa uu doodiisa ku darsaday qadiyada madaxbannaanida Somaliland. I am a long time supporter of recognition for another Islamic country, and that is Somaliland. On the 3rd of September this year, I wrote to the European Commission written question. waxaan muddo dheer taageersanaa madaxbannaanida dal kale oo muslim ah oo Somaliland la yiraahdo. 3 bishii September ee sanadkan waxaan midowga Yurub u gudbiyay qoraal su'aal ku saabsan aqoonsiga Somaliland. sidaasi waxa yiri xildhibaan Carver oo hadalkiisa ku darsaday dooda midowga Yurub baarlamaankeedu uu kaga doodayay qadiyada Falastiin. dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga UKIB ee dalka Ingiriiska oo fadhiga shalay ee baarlamaanka Yurub oo uu xubin ka yahay goobjooga ka ahaa ayaa taageeray dooda uu xildhibaanku soo jeediyay ee ku saabsan aqoonsiga Somaliland. waxa uu gudoomiyaha baarlamaanka midowga Yurub u soo jeediyay inuu aqbalo dalabka aqoonsiga madaxbannaanida Somaliland. With respect, President, was totally ignored by you, did just a few weeks ago write to the Commission about the recognition or otherwise of British Somaliland. arrintani ayaa ka dhigaysa markii koowaad ee Somaliland lagu soo hadal qaado madaxbannaanideeda iyo sidii aqoonsi loo siin lahaa loogana doodo baarlamaanka midowga Yurub hortiisa waana tallaabo horumar ah oo dhinaca aqoonsiga Somaliland.